soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa. soomaalidu caqiidadan qabiilka ee diin iyo waddan iyo dhaqan iyo dadnimoba ka xooga badani intay jirto ee in reer loo gaaloobo. gaalkii ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay. waxay soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyey. waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyey. waxa iminka axmaaro wada reer baa lagu wadaa. waxa la idan caqiida taala ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada, dadnimada, diinta, caqiidada wax walba. cadawga koowaad aan u arkayo mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidada si qaldan ay soo haysteen. caqiidada waa in laga takhalusaa oo ay bedeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo dhaqan ay weynu bedelaan. hadi waaxida. كلابات أنت المامي أنا وحويان بني آدمكم مركز تو هدف يشو قاري كرا أنا أهداف وين يالنا غيرك وحير مثلا قف مقاضة قف هان لغير مقاضة غيرك وإنير دور كنا قف ما يذكر غيرتين دور كنا قف وأحمد حنمدو ده يهجان كودي أنت اللي رادي ما حتى ضدك هجان كدونية واحد إنه هنشرو هنويني إن يدتكو يشان وآه وردوني دينا وحكا بدل لك فكرة جيسكي يراين إنه سيدتو النوني تينو كفكرينو عالم كبشر باما مولا بشر بانا إنو ناي إذن إنو هنكي نوينا دو أين دوني دا وحكا بدل لينا كفكرني طبعا كان مدمدو جيسكي تشوغا قيبين تودو وحبطة رميس ضد هلا عن نقنه ثالثا وحن لا يدين تينا عندي بقول نقنه وإسلام نمدي أنا قادمنا رابعا waxaan leeyahay dadkani intay midoobi karaan ha midoobaan oo hal isku dayo war hadii waxaynu ku kala qaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jiro ka badan waxaynu wadaagno oo badan baa jira inahaasi waxaan leeyahay hadii dadku ay ka fakaraan oo si ballaadan uga fakaraan wax badan baa la qaban karaa laakiin inta fikradu ku kooban tahay reer hebel dhulka ma geliye hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isagu waxba ma helo waa inuu ka kala dhinto waxaan uu ku faraxsay haddii xataa reerku wax noqon lahaa waxba bay noqon lahaydeen reerkan kaluun baa dhulka gelisay adigu waxba kuma kordhin ciidu markaasii dhimatay laakiin baga ma iga dhimasho badatay weeyaan intaynu doonayna shan ma anaga naga dhintay idina boqol baanu idinka dilay mar 105 Soomaaliya ma ciida hoos marisay waxba kale ma kordhin idan waxaan aan ku koobaya wax weeyaan haddii han iyo islaamnimo iyo vision iyo qiyaadaad aragtida leh ay soo baxaan waa fudud in wax la bedeli karo xaaladkeen ku noolay xaalada ka xun baana dunidu soo marto wax laga bedelay wallahu a'lam